halqadani waa ma dhaafaan ma huraankii weeyaan waa tii maasha la yidhi allah yow miriiqiyayaanu maanku naga tegi miirowna kaalmee dhaxanbaa malmalatee dabka aan melkadiye madagtiiya u sheegay dhiib martidii iyo dhurwaagii maxaa kala qabsaday ma maleegtiin marka ay ka yaabeen arrimaha ka taagan meesha arrimaha iyo kuwo kale oo aad u xiisa badan ayaan ku maqli doonaa barnaamijkeena maanta inta aynaan gudagelin barnaamijka afartan ood fashaa faa'iida weeye gambaleelkoo furtaano gobonnimo weeye warka aan u dhaadhaco gudihiisa iyo gundihiisa hoose iminka iyo haatanna aynu sii anbaqaadno sheekadeennii aynu ka soo warinaynay axmed cabdilaahi waxay xalqadii hore ku joogtay axmed iyo saaxiibkii oo la weydiiyey waraabihii ciyey waxa uu lahaa waxaanay ku jawaabeen garan mayno odaygii ayaa yidhi waxa uu leeyahay waxaa idinku soo socda ninkii hebel ee marti qaada waxa uu yidhi wax yar kadib waxa noo soo galay isla ninkii uu sheegayay odaygu waanu fajacnay oo yaabnay balse jabbo waa ka dambeeyey markaanu isnidhi seexda ee dhinaca dhulka saa u dhignay ayaanu ku war helnay waraabe ciyaya iyo odaygii reerka oo samadaa ka sannaaraya inta aanu yaabnay oo xaajadii muggeedii dhaaftay buu afkii juuqda gabay markaasuu odaygiina yidhi waar waxa uu leeyahay berri waxa hooyan doonta ama dhiman doonta islaantii heblaayo ee doobabkan kuu yimi yaanay kaa jarmaadin si ay kula duugaan hilbaha warba waa ka dambeeya habeenkii oo dhan hurdo ganaca maanu dhigin annagoo sidii ayuu waagii galaac yidhi annagoon weli beriisan ayuu nagu soo jarmaaday oday sida war xun oo u sida reerkii aanu martida u ahay waxaana uu lahaa sidan war aaska u diyaargarooba marxumadii heblaayo ahayd ayaa xalay galbatee waxa uu yidhi axmed inta aanu fajacnay oo dhagiba jaanna leegaatay ayaanu si degdega guntiga u maleeganay oo dhaqso uga baxnay goobtii run ahaantii waa dhacdo aad u layaab badan oo ah wax lala fajaco waxaanay dhacdadayna caddayn u tahay in jinku isbedelo iskana dhigi karo noolayaal badan oo aynu naqaano sida mukulaalaha eyda iyo qaar kaloo badan waxaa jirta dhacda iyana ahayd macruuf oo laga soo warinayo nebigeenii maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi asxaabi ka mid a saxaabadii rasuulka ayaa maalin ka soo noqday jihaad waxa uu u kacay dhanka iyo aqalkiisii waxaana uu la kulmay ooridiisii oo aqalka hor fadhida markaasuu weydiiyey waxaa hor fadhiisiyey guriga waxaanay ugu jawaabtay aqalka ayaa abeesu nagu soo gashay saxaabigii allaha ka raalli ahaadee inta uu seeftiisii galka ka saaray ayaa uu galay aqalkii oo dilay abeesadii isagiina bartii ayaa uu ku dhintay waana la kala saari waayey labada kii hor dhintay rasuulkeenii naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee markii qisadan loo sheegay waxa uu yidhi abeesada aqalka u diga 3 jeer hadday tahay jin waa idinka bixi doontaa haddii kalena waa abeeso caadiya ee dila waxaa jira sidoo kale nin isna ka shaqayn jiray moofadaas oo hilibka xaniidka ah lagu samayn jiray waxa uu yidhi muddo ayaan ka shaqaynayay moofada haddaba waxaa jirtay arrin aan caadaystay oo ahayd markaan hilibka jartarayo in aan lafaha iyo meelaha aanay dadku cunin u tuurtuuro mukulaalaha iyo bisadaha maalin maalmaha ka mid a ayaa aniga oo hawshaydii ku guda jira oo mukulaalihii iigu xoonsan yihiin ayaa mid ka mid ahayd mukulaalaha si kadis ah ugu soo booday miiskii aan hilibka ku googoynayay oo midida ayaan kula naxay waxaana dhaawac ka soo gaadhay meel garabka agtiisa ah mukulaashii waan iska heriyey ugu dambayn laakiin wax yar kadib waxaa ii yimi nin markii aan sidaa u arkay ee aan labadiisa indhood eegay aan khalkhal iyo kantarool la-aan dareemay inta uu ii yeedhay ayaan isla markiiba u kacay xaggiisa sida aan u wada soconay ayuunbaan is arkay aniga oo meel goda ku xidhxidhan wuxuunbaan ku war helay waar maxaad gabadha ku dishay markaasaan idhi gabadhee waxay hor taagan isla ninkii markii soo kaxeeyey oo i weydiinaya su-aashan markaasuu igu yidhi gabadh wax yar ka hor midi kumaad dhufan markaasaan yidhi kumaan dhufan isug inta uu yidhi ayaa uu baxay oo igu soo noqday isagoo wada gabadh markaasuu igu yidhi gabadhan ma garanaysaa aniga oo yaaban ayaan ku yidhi may waxa uu igu yidhi marka u horraysay isteji anaa kuu sharaxaya sida ay wax u dhaceen inta uu hadalkii sii watay ayuu igu yidhi annagu jin baanu nahay gabadhanna markii aad dhaawacday bisad ayay ahayd ee mana aqoonsatay hadda anigoo hadli ka rila ayaan yidhi walaal iska fiicafi iyadoo arrinkii halkaa noo marayo ayuunbaa waxaa noo soo galay dumar iyo rag wata carruuro badan markaasaa inta ay ninkii iyo gabadhii ku qayliyeen ayay ku yidhaahdeen ninkani in badan ayuuna xanaaneeyey ee maxaa marka uu khaldamay ugu ciqaabaysaa iminka la sii daayo ayay ninkii ku yidhaahdeen isla markiiba waa uu ii sii daayey waxa uu yidhi waxa aan gartay bisadihii aan wax siin jiray in badankoogu ahaayeen jin maalinkii wixii ka dambeeyey bisadii aad ayaan ugu sii roonaaday waayo mar baan ku badbaaday sababteeda intaas ayaynu ku joojinaa xalqadeena maanta fadlan ha ilaawina channelka subscribe like iyo share dhahdo.